sheekada filimka waxay ku bilaabanaysaa gabadhan la yiraahdo Soman oo ka soo kacayso iyadoo ag jiifta wiilkan dhalinyarada ah. Kadibna waa isku naxaysaa sariirta ay ka boodaysaa waxayna leedahay maxaa tahay oo sariirta maxaa ka qabanaysaa. Su'aalahaas ay isla markii weydiinaysaa. Wiilka ayaa isla markii ku jawaabayo waxba ha walwalin isla markiina waxay soo xasuusanaysaa sidii shalay wax u dhacayn. Saaxiibteed ayaa sawir u soo diraysa saaxiibkeed oo naakala la socdo. Si xanaaqa iyo murugta isku dhaafsiisa ay khamri isku soo daldalaysa kadibna iyadoo cabsan ay gurigeeda imaanaysaa oo dhacayso. Markaas yarkada wiilkan uu qabeysanayo wiil maayan way gabar maayan maqla jirin laakiin wiil maayan meesha jooga. Si kama ayayna u kordhaysaa dabadeedna wuu soo qaadayaa sariirteeda iyo seexinaya habeenkii meesha ay isla jiifayaan. Xasuusteedana waxa ka ogaanaynaa wiil maayahan markuu banaanka u soo baxo inuu lugihiis caadi noqonayaan kadibna uu caadi u soo qaadayo. Kadibna gabarta ayuu wuxuu ku leeyahay waxaan ahay dhaxal sugaha boqortooyada dad maayada ma jiraan horta. Macnaha gabar maayay kooxdeeda waxaas laga wadaa. ayadoo naxsan ay ka boodaysa kadibna waxay leedahay waalidiintaada nambarkooda si aan ku waco si ay ku wadaan gurigaada kuugu wadaan laakiin wuxuu leeyahay waxba looma baahna taas oo aniga markay waqtiga la gaaro ka tagayo wuxuuna markaas weydiisanayaa dhar uu xirto kadibna dharkii ayuu keenaysaa kadibna waxay ku leedahay dharka waan ku keenay iska baxay gurigayga tag wuxuuna leeyahay ma bixi karo ilaa aan mashiinka u mid aan ka fuliyo laakiin waxay ku leedahay meel kala tag oo meeshaas kale mashiinkaada ka fusho kadibna asigoo u malayso inuu murugsan yahay wuxuu leeyahay hadii aan ka tago waxaan u maleynayaa in barnaamijkayga la ogaado waxaan la ogaado kadibna ilintiis ayaa ka soo dhacaysa ilintina waxay isku bedelaysaa cool Soman ayaa isla markii soo cararaysa kadibna kuusha ay qabsanaysaa waxaan leedahay ku ogolaad gurigeena joogto laakiin hal shuruud ku joogaysaa mar walba waa inay oysaasi macnaha kuusha ugu hesho Soman waxay weydiinaysaa mishinkiisa wuxuu yahay waxaan u sheekaynayaa qisadiisa murugta wuxuu leeyahay aniga walaashay anagoo yar ayaan waxaan bilaa tusnay bini'aadanka waxaan nahnay qofkii bini'aadanka dibkii ayuu arkuu leeyahay kadibna uu naxay kadibna dibkii ayaan ku diluu leeyahay walaashay ayaan ii sheegtay leeyahay soulmate-kayga inay ahayd qofka aan dilay marka waa inaad soo raadiyaa markaan soo helana waa inaan shumiyaa sidaas ayuu mishinkayga ku dhabaanaya ayuu ku leeyahay markaas ayaan noqon karaa boqorka Antolia markii sheekadiisa murugta intuu iska wada Soman iyada ma ka qasna oo kuushayda ay isku korubsanaysaa ilintiis ayaba dan ugu jirta iyada markii ayaan Soman weydiinay sidoo ku heli lahay Solmankiisa macnaha qofkii nolosha la wadaagahay laga wadaa waxaan ku leedahay waaba ogaata adigoo hesho amal ka soo qabo maadaama Soman ay dadka caawiso wuxuu leeyahay caawintaada ayaan ka doonayaa inaan soulmate-kayga ila soo hesho kadibna waxay leedahay adina waa inay caawaysaa oo aan is caawinaa iskuulka farshaxanka ayay keenaysaa kadibna meesha ayuu istaagayaa waan la sawirayaa lacag ugu sameysay iyada intay xiisada sawirka socotay ayuu markii ka soo cararayaa meesha uu banaanka ayuu soo baxayaa Soman ayaa ka soo dab cararaysa oo celinaysa waxay leedahay sababta uu cararaysa maxay tahay wuxuu leeyahay waxaan ka cabsanayaa inay ogaadaan inaan waxaan ahay wili maayo Soman markii ka soo tagto waxay wadada kula kulmaysaa gabadhi oo saaxiibkeed la socday oo sawirkeeda loo soo diray inay ku jajastay inay bilaabaysaa kadibna waxay leedahay cid ku doonaysa ma jirto aniga ayaa ninkaada kala wareegay kadibna isla markii ayaa u maanay wuxuu leeyahay telefoonka ayaa ka soo wacay maxay iga qabow weysay isla markiina wuxuu hadiyaan u siinaa kuwa badan oo hayay kadibna dhulka ay ku daadinayaan si gabdhaha u arkaan status amal kadibna wuxuu ku leeyahay maanta nolosha waa inay ogaagtahay waxyaabaas adiga hadalo gabdhaha ka xanaajinaya uu ku leeyahay sidii gabdhaha ay ku maseerayaan kadibna meesha ay ka soo cararayaan ayaga wadada isla socda ayuu markii wuxuu sameeyay Soman ayuu soo qabanaya kadibna uu wareejinaya inuu wax ka difaacay u malinaysa kadibna biyo ayaa baawur meesha maray ku fardhinayo markii qoyda ay xanaaqaysa waxaan ku leeyahay ku mahadsantahay maadaama dhiiqadan biyaha iga badbaadisay waxaan u baahanaa biyo inaan galo si u noqdo gulmaaye nik gaarigooda ayaa soo deganaya kadibna uu raal gelinaya magaciisa wuxuu ku sheegay Jengay waxaan ku leeyahay waxaan ahay saynisyahan barto cilmiga badda namarkiisa ayuu siinaya wax allaala waxay u baahdaan inay kala soo xiriiraan markii ayaa namarka qaadanaya kadibna wuxuu leeyahay waan ku soo wacaya oo dib ayaa kula soo xiriiri doonaa kadibna markii ayaa dhahay Soman ay ku leeyahay markii guriga tagaan ninkaan arkay waxa way ki yarantiisa anigoo aan aragnay bini'aadanka ahay marka waxa laga yaabaa isaga inuu soulmate-ka yahay Soman ayaa weydiinaysa maxaa sameynaysaa marka wuxuu leeyahay marka inaan shumiyo waa leeyahay soulmate-ka sidaas ayaa guriga ku aadi karaa kadibna gabadhii ayuu soo qabanaya wuxuu leeyahay qaabkan ayaa rabaa inaan u shumiyo laakiin way ka cararaysaa ayada kadibna waxay leedahay 10 ayaa ku dhigaya oo adaab ayaan ku yeelaya dhagta ay ka soo qabanaysaa ay ku soo jiidaysaa shahaari aan adaab lahayn ayaa tahay leedahay ay meesha ku tuuraysaa kadibna Soman markaan baaritaan ayaa waxay ku sameynaysaa Jengay kadibna waxay soo ogaanaysaa inuu yahay arday ka dhigto jaamacadda ay dhigato oo ka barto marine biology-ga waxayna markii u sheegaysaa inay ka caawinayso inuu shumiyo Jengay oo uu malayo soulmate-kiisa kadibna qorshe ay Jengay u tagayaan meesha uu joogto ay tagayaan kadibna markii wuxuu iska dhigaa qof suuxsan waxaana uu maanayo Jengay wuxuu isleeyahay qofkan caawinayo u baahan yahay isleeyahay kadibna wuxuu bilaabayaa wadnaha ka bambeeyo oo wadna xanuun inuu la suuxsan yahay uu maleynaya isla markuu Jengay isdhaw afka neefka si markii uu istaagay uu cararaya maadaama uu ka cabsaday baldin biyaha meesha ku daatay inuu soo gaaro oo kadibna sidii uu isku bedelo kadibna qorshe kale ay keenayaan Soman ayaa gadaal ka soo darbaaxaysa si uu ninkan hoos ugu shumiyo laakiin markuu soo dhacay ayuu ka cabsanaya inuu kor dhaco u banaynaya muddo kadib Soman ayaa shaqo ka helaysa goobta oo Jengay ka shaqeynayay Jengay wuxuu u sheekeynayaa qaabka uu meeshan u maamulo oo xanaanayo malaayada iyo meesha ku jiraan
wuxuuna Sooman ku dhiirigelinayaa inay sidoo kale u xanaanayso iyadana ay ka taxdirto malaayada. Mercury ay u soo laabanaysaa kadibna waxay ku qabsanaysaa sababta uu soo cararay way isdagaalayaan. Mercury ayana Sooman toogay kadibna wuxuu leeyahay banaanka ayaa lii taagan yahay banaanka uma bixi karo waan cabsanaya iga soo fiiri bahalka banaanka taagan iga raacday. markay soo baxdana bisad yariis ayaa meesha taagan oo ka cabsanay maadaama ay ogaato bisadaha inuu ka cabsanay kadibna banaanka ay soo tuuraysaa banaanka inuu bisad si uu agteed u istaago. maalintii xigta waxaan arkaynaa Sooman oo la wada cabayso Jengay iyo eeday wada cabayaan meel fadhan waxaana beel fog ka fiirsanayo Sooman ninkii Mercury ahaa. Sooman markay aad u cabto waxay bilaabaysaa sheekada boqorka iyo waxaas inay ka hadasho oo kadibna Mercury ayaa dhahay aamus sheekada joog wayna soo xis. Mercury ana soo qaaday xafada ugu soo qaaday wuxuu leeyahay sababta saad u cabto maxay tahay. Sooman ayaan dhahayso gabay maayo haddii ay helin qofka soulmate-keeda inay dhagax isku beddelayso sheekada saay maqla maxaa ka jira igu leedahay Mercury. maalintii xigta Sooman albaabka ayaa la soo qaracay waxaana soo garaacay gabar sheegaysa Mercury inay walaashiis tahay. Sooman guriga inay soo gashay oo garanaysa kadibna isla markii Mercury ayaa soo cararay Sooman ayuu la cararayaa gudaha ayuu ganinaya wuxuuna bilaabayaa dharkiisa inuu aruursado. Sooman ayaan weydiin sababta uu argagaxsan yahay oo rabo inuu cararo wuxuu leeyahay naagta maahan mermaid maahan waxa waaye sixiray intee kala turtay albaabka ku xiray. Mercury walaashiisna waxay leedahay meeshan waxa uu midina ogaado walaalkay xaalkiisa meesha uu marayo iyo missionkiisa waxa uu dhimay. Mercury sawirku Jengay ayuu wuxuu tusay walaashiis wuxuu leeyahay kan ayaa shumir rabaa waxayna leedahay waxaas ma macquul maahan wax macquul ay sheeg. kadibna gabadhii Sooman ayaa soo baxayso waxayna leedahay shaqada ay aadaya ayadoo Jengay israacayaan. Mercury iyo walaashiisna way dib ay u soo raacayaan ma goobta ka shaqeynayaan inay soo dabraacayaan. Jengay iyo Sooman sheeko fiican ay dhaxmarayso waxaan u maleysaa inay isku soo dhawaanayaan markaan. Mercury oo kuma seeraya kadibna baaldi biyo ayuu ku soo firinaya Jengman ayaan isku dhigayo. Jengay iyo Sooman ayuu gurigeeda keenaya markii dambe wuxuuna siinayaa hadiyad taasoo ah malay meel ku jiro. Sooman hadiyadii guriga ay soo gashanaysaa kadibna waxay ku leedahay hadiyadan mid aad u qurux badan weeyaan. Mercury markaan asagoo masirkiisa la mijibaarmay ayuu leeyahay qof walba uu qurxan yahay maxaa yeelay wiil maaya ayaa meeshan jooga aad qurxan soo ima jeedid aniga laakiin Sooman ayaa ku leedahay xaalad aad u wacan inay ku jirto maanta ayna dooneen inuu muran ugu qaso. kadibna way istaagaysaa qolkeeda iyo iska aadaysaa laakiin Mercury ayaa daba raacayo qolka ay ka xiranaysaa uma ogolaanayso inuu qolka u soo galo. kadibna walaashiis Luna ayaa imaanayso waxayna qabanaysaa Mercury albaabka ay ku tuuraysaa galada inay ugu xiraysaa maxay waxay leedahay ninkan walaalka wuxuu jeclaaday gabadhan. Sooman markaan waxay isku dayaysaa albaabka inay furto laakiin way fur weynaysaa. Mercury wuxuu aadayaa sariirta ay isku tuuraya. Sooman lugta ay ka qabanaysaa kadibna way soo jiidaysaa Mercury waxayna leedahay sariirtan sariirteedii waa aniga ay jiifanaa cid kale jiifa karto ma jirto. Mercury wuxuu leeyahay waxaan ahaa dhaxal sugaha Antolia dhaxal sugayaashana waxay jiiftaan sariirta qaaliga laakiin markii dambe waxay ku shiinayaan inay daah dhaxda dhigtaan kadibna laba sariir ay ka sameystaan labada sariir ay geesaha kala jiifanayaan laakiin habeenkii gugac aad u daran ayaa imaanaya kadibna Sooman gacanta Mercury ay qabsanaysaa wayna barkanaysaa iyadoo wehelka raadinayso. subaxdii xigta Sooman waxay isku dayaysaa Mercury inay ka kaciso sariirta laakiin wuu kicidiida kadibna waxay sameynaysaa gacantiisa ay qaniin ku qabanaysaa. Mercury ayaana sariirta ka boodaya kadibna albaabka ayuu qabanaya albaabka inuu furan yahay ayuu arkaya. banaanka ayuu soo baxaya si walaashiis u fiiray laakiin banaanka markuu imaado walaashiis uu weynaya oray ay baxday. warqad ayayna u dhigaysaa walaashiis waxayna ku leedahay Mercury waa inaad raadisaa soulmate-kaada qalbigaada wuxuu ku sheegana samee. kadibna goobta aquarium-ka malaay lagu keenayo imaanaya wuxuuna bilaabayaa inuu shumeeyo Jengay laakiin biyo Jengay gacanta uu ku waday ayaa ku daadanaya lugaha Mercury. kadibna Sooman ayaa amaanaysa trolley ayayna keenaysaa kadibna Mercury ay ku tuuraysaa wayna dadaysaa. kadibna Jengay fikrad ayaa ku dhalanaysa maxaa yeelay ninkan mar walba biyo arku muxuu u ordaa ayuu isleeyahay wuxuuna halkaas ka xaqiiqsanayaa ilaa yaraantiisa midku raadinayo oo wiilmaayaha ah inuu kan yahay. Sooman aad ayay u xanaaqaysaa Mercury kadibna waxay leedahay lugaha hadii uu arki lahay maxaa dhici lahay meesha maxaa ka dhici lahay qatar ayaa gileeda ay ku leedahay. kadibna iyadoo xanaaqsan ayay geeska fadhiisanaysaa laakiin Mercury ayaa tusay kaarka oo dukaameysiga walaashiis ugu tagtay si uu ugu sasabo wuxuuna leeyahay soo dukaameysan soo baxay soo raacayaan ka bacdi dukaanka ay soo aadayaan. markay dukaameysan waxay fadhiisanayaan meel darjiina. Mercury wuxuu sheegayaa missionkiisa inuu dhameeyay Sooman laakiin inuu bixi karin maxaa yeelay cuntada ay kariso aad ayaa ugu helo wiilay cuntadaada. markaan waxaan arkaynaa Jengay oo ka hadlay sidoo arka wiilmaayo laakiin qof walba u sheegay in ka ahminin nin qayb dadka ah qaybna malaa'ika ah qof walbana taaway ka aamini weys. kadib markii beenaala dadku ku sheegeen wuxuu go'aansaday inuu cilmiga badda u barto kadibna uu halka ka ogaado kana cadeeyay gabri maayada inay jirto xaqiiqna ay tahay. maalintii xigta Sooman shaqada ay iska aadaysaa Mercury guriga ayuu ku harayaa kadibna qubays asigoo iska qubaysanaya ayuu wuxuu arkayaa roob saa'id inuu banaanka da'ayo wuxuuna soo xasuusanayaa Sooman markii bixis inayna wax qaadan dallad wuxuuna go'aansanayaa inuu dalladda u qaado oo uu geeyo meesha ka shaqeynayso si uu ugu dhawaado. Sooman lugaheeda qoyaanka uu u ilaaliyo lugaha iyo wax walba wuxuu gashanayaa biyaha iska ilaaliyo. Sooman markaan waxay joogtaa goobta ka shaqeynayso kadibna waxa uu imaanaya Jengay isla markiina waxay siinaysaa warqadeeda Ashasiis Cali Salaada waxaana leedahay aquarium-ka inay waqti u hayn inay joogto waxna ay ka barato. kadibna Jengay ayaa weydiinaya ninka ila noosha wuxuu yahay wuxuuna leeyahay ninkaas aad ay u dabeecad xun yahay qaabka uu dhaqmayo ma ka helin xataa shalay Shums ayuu u boobay ayuu leeyahay. Sooman waxay leedahay ninka guriga deganaha iska leh waaye nin aad u dabeecad qaab daran waana waa ogahay leedahay. kadibna way ka soo cararaysaa banaanka iyo soo cararaysaa banaanka markay timaadana waxay arkaysaa roob zaa'id oo meesha ka da'ayo
isla markaasna Jenge ayaa gadaal ugu imaanaya asigoo daladii wado wuxuuna leeyahay israacna soo bax isla markaasna Mercury meesha ayuu soo gaaraya asigoo daladii u wado gabadha laakiin markuu arko iyadoo Jenge la socoto oo ka xumaanaya Jengena isla markaas wuxuu jecel ay u sheeganayaa Snowman laakiin way ka soo horjeesanaysaa wayna ka soo tagaysaa iyadoo raali gelinayso guriga markay timaadana Mercury ay guriga ka weynaysaa kadibna waxay arkaysaa ooyintiisa iyo warqad uu meesha ugu tagay oo nabadii uu ku dhahayo tigitaankiisa kadib Snowman aad ayay ugu murugoonaysaa waxayna ka fikiraysaa sababta uu u tagay asigoo u sheegin dhanka kale Mercury walaashiisa ay u tagayaa kadibna wuxuu leeyahay meesha iga wad maxaa yeelay Snowman iyo Jenge way isjecelyihiin ayuu leeyahay xiriir iyana ka dhaxeeyo kadibna walaashiisa ayaa ku dhahaysa iskama go'aansan kartid gabadhaas waxay ka qabto qalbigaadu waxa ku jira waa inaad u sheegtaa maxaa yeelay qaabka ay kula dhaqmayso ayaan arkay waxaan leedahay wayna ku jeceshahay gabadhaas sida u malaynayo kadib Mercury wuxuu ku leeyahay mishinkii waa isku dhamaaday oo ninkii Jenge ahaa waa soo shumbiyay mishinkeena intaas oo ahay walaashiisa ayaa ku dhahaysa mishinkaada wuxuu ahaa qofka la jeceshahay inaad hesho qofkaasna waa Snowman ay leedahay soco Jengena soulmate-kaada maahan ee gabadhan waa inaan shumisa ay ku leedahay Mercury Snowman ayuu soo laabanayaa kadibna wuxuu arkayaa sawirkiisa inay sawirtay farshaxanka ayna jeceshahay Snowman ayaa weydiinaysa sababta uu baxay oo ugu tagay iyada kadibna wuxuu ku leeyahay maalintaas roob zaa'id ah ee dayay adigana ma qawadan dalada laakiin dalada ayaa ku soo qaaday uu leeyahay maalka ku keenana waxaan arkay adigoo Jenge la socoto oo daladiisa hoosta u jirto aad ayaan ugu kadibna Snowman ayaa hab siinayso kadibna mar ay isku dadayaan laakiin inta ishumin maalinka ayaa imaanaya kadibna marada ay ku dafaya meesha ayuu ka racdeynaya guriga markay tagaan barnaamij xujaa jara ay rabaan inay xaliyaan laakiin Snowman ayaa hurdal dhacayso maadaama ay daalneed kadibna Mercury ayaa shumis ku xaday inaa ayna kala qaadaysa markaas ayaa Snowman waxay sameynaysaa saacad ay siinaysaa oo GPS ku jiro waxaan leedahay meel walba joogto si uu ogaado saacadan qabso maalintii xitaa wuxuu u fikirayaa nimanka inay shaqaystaan si familkooda u qoodiyaan marka shaqo ay u raadsanayaan kadibna dukaan ayuu shaqo ka helayaa dukaankan waxaa imaanaya gabar iyo saaxiibkeed oo mar walba isdagaalaan gabadhina waxay rabtaa biyaha kulul inay gadato laakiin saaxiibkeed ayaa imaanaya geedka biyo ka qaadaya meesha ayuuna ku celinayaa kadibna Mercury ay fiirinaysaa waxayna weydiinaysaa gabar la yiraahdo Somi inay halkan ka shaqay jirtay iyo in kale waxayna ku leedahay gabadhaas markii aan dacweeyay kadib shaqada ayaa laga ceyriyay oo aniga ayaa ka dambeeyay in shaqada laga ceyriyo dhowr maalin ka hor gabadhan iyo saaxiibkeed oo kontarka korkiisa ku murmaya Snowman oo meesha ka shaqaynaysa ayaa lacagta ka jarayso kadibna gabadhan saaxiibkeed ayaa ku xanaaqaya oo ka dacweynaya sababta lacagta ugu jirtay iyadoo ka amar qaadan taasoo Snowman shaqada lagu ceyriyay sabab darteed gabadhan muuqaalka Mercury ayaa ka heshay waxaan leedahay shaqada gabadhaas in laga ceyriyo way fiicneed maxaa yeelay adiga wasaan u wanaagsan ayaa meesha noo timid Mercury sidoo kale wuu mahad celinaya maxaa wuxuu leeyahay hadii adiga sasamay lahayn shaqada goobta ma ka heli lahayn gabadhaas quruxda badan isma bar lahayn oo ma kulmi lahayn isla markaasna saaxiibkeed ayaa imaanaya Mercury hortiisa ayuu ku caayinaya wuxuu leeyahay xiriirkeen halkan ay ku dhamaado uu iska tagaya Mercury banaanka markuu soo baxo wuxuu arkayaa gabadhii oo banaanka ku sugayso way u imaanaysaa waxaan leedahay saaxiibkay ma naqanaysaa maxaa yeelay hadda single ayaa ah saaxiibkay uga tagay isla markaasna Mercury indhihiisa gaduud ayuu ku dhigaya kadibna wuxuu leeyahay diyaar moota inaan saaxiibka noqdo wayna qaylinaysaa ka bacdin meesha goobta ay ka cararaysaa iyadoo naxsan guriga markuu imaadana guriga dham ayuu qurxinayaa buufin iyo wax walba ayuu ku xirxirayaa si uu gabadha u soo jiito waqti dambe ayaa Snowman soo gaaraysa guriga Mercury guriga way ka weynaysaa meel oo jaan iyo cirib dhigana ma garanayso markaas ayay waxay bilaabaysaa saacadii inay GPS-keeda inay dib u raacdo oo wana tixraacdo meesha uu ku sugan yahay dhanka kale waxaa arkaynaa Jenge oo soo afduubtay Mercury si uu cilmi baaris ugu sameeyo wuxuuna dhex dhiganayaa meel galaas oo biyo kuleel ku jiro wuxuuna uu sheekeynayaa qaabka uu dadku ugu sheegi jiray wilmaayo inuu jiro dadkii u aamin diideen beenlowna ugu dhigeen dadka qaarna ay ugu yareen inuu weelan yahay laakiin hadda uu doonayo inuu u caddeeyo inay jiraan wilmaayo iyo gabarimaayaba Snowman oo GPS ka soo dib raacday ayaa dhisme imaanaysa dhismahana waa dhismihii oo library oo Jenge cilmi baaris ugu sameeyay Mercury markay aragto xaaladda uu Mercury ku sugan yahay aad ay u naxaysaa isla markaas Jenge wuxuu maqlayaa dhawaq kadibna albaabka ayuu aadaya si uu soo hubiyo Snowman goobta ay imaanaysaa kadibna isku dayaysaa inay meesha ka bixiso Mercury markay isku dayaan inay baxsadaan Jenge ayaa arkaya kadibna uu imaanaya wuxuuna leeyahay ninkan isaga tag aniga ayaa doonaya inaan cilmi baaris ku sameeyo ilaa yaraantii ayaan ku mashquulsanaa arrinta inay suura gasho ayuu leeyahay mana ku ogolaanay inaa iga wadato ayuu leeyahay laakiin Snowman ayaa ku dhahaysa bini'aadan anagoo kala waaye waxba ka ku samaynin si ay uga baxsadaan waxay isticmaalayaan dabdamiyaha gaaskiisa ayay ku soo afuufayaan taasoo meesha dham qiic iyo uura ka dhigayso kadibna way cararayaan saqafka kore ee dhismaha ay korayaan si ay ugu dhuntaan ninkan Mercury markaan Snowman ayuu ku codsanaya inay badal u raacdo maxaa yeelay bini'aadanka dad aad u xun waayo leeyahay lama joogi karo laakiin waxay ku leedahay bini'aadanka oo dhan ma xumo oo ninkan camal maahan isla markaas Jenge ayaa goobta soo gaaraya isagoo raadinaya iyaga isagoo midi wata inuu xaggooda soo aadaya kadibna Mercury ayaa la cararaya Jenge wuxuuna weydiinayaa inay aaminsan tahay in kale waxaana ku leedahay Mercury Snowman ayuu goobta kala boodaya markuu boodayna wuxuu sameynayaa qaab biyo camal wareeg oo uu sameynayaa si uu u difaaco Snowman idoo baqabta oo waxba gaan ay si tartiib ah dhulka u gaaraysaa
Sawmina markaa waxay u malaynaysaa inuu nafsadiisa u horay si uu iyada u badbaadiyo aad ayayna ugu xumaanaysaa arrintaas maalmo badan ayaa ka soo wareegtay marka dhacdadaas ka bacdi waxaan arkaynaa Sawman oo warqad qorayso mar walba oo badda ku tuurayso maalin maalmaha kamid ah ayaa gurigeeda markii soo laabatay ay qoraarad ay soo taraaraxayso markay dhawaqa maqashana waxay u cararaysaa musqusha qubayska kadibna waxay ku arkaysaa Mercury oo dhex fadhiyo welina waa nool yahay waxaana u keenay dhammaan warqadihii ay u diri jirtay aad ay ugu farxaysaa halkan inuu ku midoobayaan fadlan hadalkan dana soo gaar subscribe noo saar haddaan ugu cusubtahay haddii aad hore noola joogtana like share comment si ay sheekooyintan ugu xiiso badan aan kugu soo gudbino